adiga jaceylka maxaad ka aaminsan tahay inuu guurka ka hor yimaado ama kadib yimaado? farqi noocee u dhexeeyo gabadha wax soo baratay iyo gabadhan waxba baranin? barnaamijkii single yahow maxaad guurka ka aaminsan tahay, ama se haddii aad guursatay farqi noocee ah ayaa guurka iyo singalnimada u dhexeeyo? ayaa waxaa maanta nasiib u yeeshay wiil asagana baarti 2. wiilkan wuxuu ka hadlay barnaamijka oo uga hadlay arrimo aad iyo aad xamaasad u leh. fadlan yaa lagaaga sheekeynin, ila dhegeyso. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabta ku xiran Umu Suuna waa idin salaamay meel walba joogtaan, wiilal iyo gabdho. walaal soo dhawow. haddii ay tahay markii ugu horeysay oo janalkayga kusoo gaaro ama muuqaalkayga aa aragtid, haddii aad hore noola joogto waa ku mahadsantahay. dhiirigelinta, ixtiraamka, dulqaadka iyo kalsoonida aad noo muujisid markasto ajar ilaahay kaa siiyo. ila dhegeyso wiilkan iyo fikradiisa yaa lagaaga sheekay. baarti 2 iyo single haddaad tahay maxaa guurka ka aaminsan tahay ayaa ku guda jirnaa. halo, assalaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. qofkii labaada tahay ma ogtahay? عدكي سيف الصحة وأطمق ملينا. si fiican aa u maqalnaa, dadka dhan way ku maqlaayaan. waxaa ku jirtaa Umu Suuna janal. asxaabta salaam. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام يا دمان أصحابك كحرم يوتيوب channel ka Umu Suuna. okay, see u aragtaa barnaamijkan? والله برنامج كان برنامج حساسي وانا باهن ان بلشده لو سو بندhigo waliba ana codsaday in maxaa lahaan ka qayb noqdo oo fikirkeyga bulshada la wadaago. sax. adi maxaa isleedahay dadku uu ka bedeli karaa? dad badanaa waxay dhahaan waxaan wax jira ma ahan. والله dad badan oo wax badan ka bedeli karaa oo hadda aniga taas oo cilmi badni qof hadda cilmi badan miihi, laakiin intaan ka aaminsanahay haddaan bulshada la wadaago waxaan aaminsanahay in dad badan guurka waxay ka aaminsan yihiin iyo wax xaqiiqda inay kala fog yihiin. sidaas darteed dad badan ama guurka ka qoostay ama maxaa lahaa aan jeclaa lahayn ama waxa ka wareegsan jiray ama kuwo guurkooda soo xumaadaba oo guurkooda hore xumaado kale oo yacni qof qaldan kusoo aaday. adduunka horta qof qaldan ma jiro si aniga ila tahay fikirkeyga, laakiin waxay tahay labada qof waxa uu kala wadi karo kala dheeray karo waa dabeecadaha. labada qof haddii isdabeecad fahmaan waxa waaye waa laba qof oo isla noolaan karta oo waqti wada qaadan karta, laakiin haddii dabeecadaha qaar ay kala duwanaadaan labada qof waxay noqonayaan macnaha labadii qof inay kala tagaan. saasoo yacni dadku ay u fasirtaan in labada qof mid xun yahay ama labada wada xun yihiin, laakiin adduunka qof xun ma jiro. dabeecadaha waa qofka dadka waxa kala fogeyay. saasay kuleeyaan ila tahay. may qaladka yacni waxaa laga wadaa qofkii ay oo qofkaas ku saxnaa ma ahano oo ay isfahmayeen oo isku wada ay raaci lahaayeen ma aha. صح sidaas waaye. Soomaaliya waxay ku maamahdaa cadka ninkii cuni lahaa lama siin ama baadiyo nin aan lahayn bay ag joogtaa. marka waxaa laga wadaa labadii qof oo isku haboon haddii is helin waxa waaye guurkaas guur saxan ma noqonayo ama maxaa labadii qof islama sii wada joogi karaan. sax. okay, marka magacaaga noo sheeg ugu horeen. mahadsantahay walaashay qaaliya. ani magacayga waxaa la dhahaa Maxamed Cumar Asmaan, waxaan ku noolahay magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Soomaalida ku badanta Asley aan joogaa. okay, Maxamedow, su-aasha koowaad waxaa waaye ma soo guursataa adiga? halo waa ku maqlaa. soo guursatay adiga mase single aa tahay? si fiican aan ku maqlaa walaal qaaliya. halo
Hello. ma soo guursataa lagu dhaha ma soo guursatay su-aasha koowaad Horey uma soo guursan aniga mii qof macnaha ma guur soo maray weli waxaan ahay single ama sida loo yaqaano ragga weli guursan doob loo yaqaana sidaas darteed marka qof aanay weli soo guursanaan ahay okay marka hadaada soo guurso guurka yacni waxaa ka aaminsantaha jira maxaa ka aaminsantaha guurka waxaas leedahay nolol noocee ee maxaa kuu sawiran adi wallahi ani guurka waxaa ii sawiran inuu yahay nolol hadda aniga aanan gaarin oo weli iga maqan laakiin fikirka aan ka haysto ama pictureka aan ka haysto ama sawirka aan ka haysto wuxuu yahay in ay tahay nolol raaxa leh oo yacni tan hadda aan ku noolahay ka bedelan oo maxaa la lahaa horumarna ahoo qofka maanta reer kale iyo qofka aan reer kalahay maanta isku mid ma ahano waa qof mas-uul ah oo waxyaabo oo mas-uul ka yaha haysta ama maxaa la lahaa nimcooyin gaar haysta iyo qof aan haysan ay kala yihiin marka sidaas darteed waxaan aaminsanahay guurku inuu yahay heer aniga weli aanan gaarin oo iga sii sarreeya oo haddii ilaahay idmana aan ku rajoweyna insha allah inaan gaaro marka haddii ilaahay yidhaahdo okay yacni waa nicmo kaa maqan oo dadka guursada nicmay ku dheer yihiin waa qofkii maanta guur haysta ama qof oo maxaa la maanta nolosha la qaybsada haysto oo ilaah allah subxaana watacaala isku baneeyay haysto waxa waaye waa heer uu dheer yahay oo macnaha nolol uu dheer nimco uu dheer allah subxaana watacaala uu siiyey allah waxa ugu mahad celiyaan dhihi lahaa aniga okay yani alxamdulilah yiraahdo qofkii maanta guur xalaal haysto okay dad badan waxaa jiro oo guur haysto ma fahansan tahay oo marka dhahaya noloshii singalka iyo rooneed oo dhib ku jira laakiin adi maanta banaankaa joogtaa waxaa kuu sawiran nolol fiican inay tahay maano ay sawiran inay tahay nolol fiican soomaalida waxay ku mamaaday nin aan guursan gogol fiican kuma seexdo marka sidaas darteed waxaa aaminsanahay inay tahay nolol weli ii dhiman haddaan waxaan dayday ugu jiraa qofkii maxaa lahaa aan noloshaas la samayn lahaa oo yacni aan wadaagi lahayna noloshaas aan hadda daydada ugu jiraa marka sidaas darteed waana ku rajoweynaa insha allah inaan heli doono haddii ilaah yidhaahdo qofkan hadduu daacad yahay oo yacni allah subxaana watacaala uu ku xiran yahay qiyaamana uusan aqoon beenna uusan aqoon waxa waaye waa mar walba waa guuleysanaya marka alxamdulilah noloshaas waa nolol weli ii dhiman laakiin fikirka aan ka haystaa waxay tahay nolol aad u fiican oo ka wanaagsan mid hadda aniga aan ku jiro okay singalnimada dhaanto wax badan wax badanna uma dhowa okay mas-uuliyad noocee ayaad guurka ka filaysaa adi haddii aa lacala guursatid mas-uuliyad noocee ku koraysaa isleeda oo u diyaarsatay wallahi haddii aan guursado horta waxaan noqonaya qof mas-uul haddii ilaah yidhaahdo waxaa aaminsanahay haddii aan guursado inaan mas-uul ka noqonayo qof bini-aadan ah maxaa la dhahaa naftiis reer dhan hogaamintiis inaan qaban doono sidoo kale haddii awlaad ay timaado waxaa aaminsanahay in ayaga mas-uuliyadda iga saaran tahay tarbiyantoodii iyo quduraadintoodii iyo maxaa la dhahay wax walba waa in wey oo ku saabsan macnaha reerkaas in mas-uuliyaddiga yani iga kortay midda kale dadkii aan xigaaladii ama dadkii markaas aan gabadha ka guursaday oo xididka ahaa ayagana in mas-uuliyadda iga saaran tahay ka warqabkoodii iyo xiriirintoodii iyo maxaa la xushmayntoodii inay ayagana mas-uuliyadda iga saaran tahay dadka aniga macnaha familkayga ama qaraabadayga inay mas-uuliyad kale iga fuuleyso sababtoo ah soomaalida waxay samaysaa badanaa qofku markii uusan weli guursan oo yani uu single yahay badanaa dhalinyaradaas caadiga lagu xisaabiyaa oo waxawaaye aad looma xisaabiyo laakiin markii qofka uu guursado oo qofkii qof mas-uula noqdo waxawaaye reeraha lagu soo daraa waxawaaye waa la xisaabinaa reeraha qoysaska oo yani la tirakooba ama la tirina lagu daraa qaaraan haddii yani laisku soo qoro qaaraankia lagu soo qoraa waxawaaye waa macnaha waxyaabo badan oo markii singalka aad ahayd aadan heli jirin fursad u heli jirin ama markaas kamid noqoshadooda aad fursad u helaysaa yani qof lagu xisaabtamaa noqone oo aan la dhayilsan karin oo weliba ay tahay in aad looga dadaalo aad looga fakero
okay yani qof lagu xisaabtamaayo family dhan oo soo kordhaa tahay markaas maahano. waa sax sidaas waa. okay gabar wax baratay ma guursan lahayd mise gabar aan wax baranin? والله سؤاشس dhalinyaradu way ku kala duwan yihiin ama ragga markii la yiraahdo way ku kala duwan yihiin laakiin aniga ahaanteyda waxaan jeclahay inaan nolol la qaybsado gabar wax baratay. okay sabab maxaa ku dooratay? sababta aan ku doorto waxay tahay Soomaalidu horta waxa way iska warbadan yihiin waxa way waa adan Soomaalilaha waa war jecelnahay marka qof wax bartay wax kasta loo sheegay hadal kasta loo sheegay si kasta yani la damco in loo dulmiyo ma u nugla ama ma qaado ka sababtoo ah waa qof garaadkiisu dhisan yahay oo yani wax bartay oo aqligiisa iyo cilmiga oo bartay intaba ku xisaabtamay laakiin gabadhu hadii aysan wax baran yani badana ardo wax barashadu dhowr nooc ay gashaa qof karto markasta duu diiniin u dhisan yahay qofka uu diin oo haysto oo diiniin u dhisan yahay waxa la wax badan oo diinta ku og yahay waxa way horta sil ama lagu duufsado ama lagu diro way adag tahay laakiin dhinac walba ha ahaata gabadha ama diini ha barato ama maadi ha barato labadaba gabadha haday wax barato reerkeedana way anfacaysaa adigana way ku anfacaysaa wax walba qaraabadii familkii qof kasta yani waxa way wiji furan iyo wixii ku soo dhaweynay iyo wanaag laakiin gabadha hadaysan wax baran waxay u badan tahay qalbigeeda ama maxaa la lahaa garaadkeeda in si fudud lagu bedelo oo wixii shalay ay ka aaminsanay wax ka duwan ay ka aaminta aad fudud. okay yani gabdhaha wax bartay bulshada qaarkood wax xun ay ka aaminsan yihiin hadii maxaa leedahay? wallahi ani wali waxaan ku qanacsanahay gabadhu subaxdii marka aniga shaqo tago oo meel aan shaqo tago in ayadana nooc kale u shaqo tagto hamiinkii aan isku imaano ayadoo yani soo shaqeysay aniga aan soo shaqeeyay aan isku imaano nolosha saasi ku fiican tahay laakiin qofka dumarka ama gabadha markii la hadii maanta guriga joogto ay hawl kala qaban waxa laga yaabaa markii adiga aad imaatid adoo yani buuqii ku jiray shaqadii iyo dadkii ku jiray waxa laga yaabaa in waxyaabo kale ama deriska ay ka soo maqashay ama maxaa la lahaa meel kale gabadhii maanta u yimaadeen uga shaqeeyeen inay ama kula timaado maxaa la lahaa ay halkaas nasiinadaadii iyo waxay meeshii macnaha aad ka filaysay in maxaa la lahaa wiji furan lagu soo dhaweeyo xogaa meeshaas buuq ka dhasho inta kale qofku markuu suuqa ka warqabo qofku oo magaalka u baxo oo waxbarasho aado oo shaqo aado oo meel aado macnaha caqabada jirta ama waxyaabaha jiro oo ogaan kara qofku marka sidaas darteed waxa fudud marka labadii qof in yani saas isku fahmaan oo maanta hadii xataa aan guriga joogo ama guriga joogo qof shaqadii kamid ah ama qof qaraaba ama gabar kamid ah ay soo wacdo aysan u fahmin macnaha ay ogaato in uu noqon karo qof ay shaqo igala dhaxayso ama maxaa la hawlo kale yani la dhaxay u fahamto oo isla markii ay maskaxdeeda soo qaban in macnaha gabar aniga aan shukaansanay inay tahay macnaha isla markii maskaxdeeda soo qaban marka qofku markuu garaadka ka dhisan yahay oo yani aqoon oo leeyahay dhinac walba maadiha ama diini ha ahaatee waxa waaye waa qalbigiisu macnaha waxa waaye waa dhisan yahay niyadiisu way dhisan tahay garaadkiisu wuu dhisan yahay macnaha qof waxa waaye caqabad kasta oo yani ku timaado jaalajagaray kara waayo maxaa lahaa oo la qabsan kara. waxaa is leedahay miyaa shakiga badan waxaa keeno gabdhaha aan wax baranin u badan shakiga badan iyo maseerka qofku markuusan shaqayn uusan camal lahayn waxa waaye adigu camal kaa dhiganaya kuwa mashquula camal kala haysto iyo shaqa iyo mashquul oo haysto waxa waaye macnaha ma ku soo xasuusanaya waxa waaye adiga iyo macnaha raasraacaadi waxa ma soo xasuusanaya xitaa